waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee VOA-da waana qaybtii 13aad waayihii iyo sheekooyinkii garaad wiilwaal. dhegaystayaal goor habeen bara waatuu wiilwaal afadiisii dahabo ugu faanay rag oo idil inuu isagu ugu xirro badan yahay uguna geesisan yahay taana intay ku diiday waatay ku tiri garaadow dunida rag baa kula jooga iyada oo maanka ku haysa agaal ilay oo ka mid ahaa raggii tirada yaraa ee ninkeeda isku taagi jiray weedha dahabo intuu aad uga umlay waatuu ka tawday ujeeddadeeda inay u faahfaahiso dabadeedna iyada oo aan cidna magac dhabin waatay ku tiri waxaan u jeedaa ninka og inaan adiga kuu dhaxo ee haddana isoo hawaystay markaana waatuu weydiistay inay u sheegto siduu ninkaa isaga ah ku garan karo waatay dabeed ku tidhi waa ninka habeen dambe igu soo dheelman doona sidaan u haasaawinaayo ilaa hiirta waa beri waa ninka aan soo jeedin doono saa dambe geedka shirka markii la isugu tago waa ninka ku lulmoon doona ninku waa ninkaase adigu garaadow ragga kale sidaa kaga aqoonso siday caadadu ahayd geedka markii lagu soo dhammaaday ayuu wiilwaal hadalkii u hormaray wuxuu wax ka yidhi arrimo ku saabsan daaqa iyo degaanka tolka iyo dadyawgii ay dariska ahaayeen wixii qaan ahaa oo kaga maqnaa amaba iyaga lagu sheeganayay waa nin wax u dan lehe hadalka wuu dheeraynayaa si uu shirka u daaliyo intii uu dabeebanayay oo dhanna raggii goobta fadhiyey ayuu mid mid isha ula raacayaa bal inuu arko kii ay dahaba u tilmaantay balqaharaac markay ahayd ayuu indhaha ku joojiyey cigaal ilay oo gamanyoonaya qoorta ayuu laalaadinayaa garkuna galowda korkeeda ayuu ku qotamaa marba hoos ayay luqunta uga dhacaysaa haddana intuu isgarto ayuu soo ceshanayaa indhaha ayuu kolba isku qabanayaa haddana intuu marmarto ayuu kala furayaa wiilwaal oo tilmaantii afadiisa wax ka arkay ayay markaa wax u iftiimeen cara ayuu ismadax maray markaas buu si degdega cigaal isu dultaagay warankii uu midigta ku haystay intuu dushiisa ku gelgelay ayuu ku tuuray su'aal aan xujo ka marnayn isla markaasna sarbeeban wuxuu ku yidhi cigaalow halku xamay isna intuu ujeeddadii gartay ayuu kaga jawaabay ima xamane waa hamiyey garaad xirsow markaas buu wiilwaalna ku yidhi cigaalow maxaad ku hamiday naase dameeraad ma horaaddaah mase waa dambeeddo cigaal oo inuu lulmooday dafiraaya ayaa dulucdii hamigiisa sidaa ku sheegay dhammaan intii geedka joogtay ayaa la amankaagtay dabuubihii labada nin dhex maray iyo sidii fududeed ee uu cigaal isku xujo furay waxaa la garan waayey naase dameeraad horaaddo ama dambeeddo mid lagu tilmaamo markaas ayuu garaadkii qudhiisuna inta iska aamusay halkiisii ka sii watay wararkii uu shirka u jeedinayey isaga oo weli raggii goobta fadhiyey isha ku wada haya wuxuu jeedaalinayaa cigaal mooye bal nin kale oo geedka ku lulmooda dabadeedna uu ruuxa weysiiyo taasise ma dhicinoo ninna dabinkii uu dhigtay uguma soo dhicin maxaa yeelay wuxuu is-adkeeyaba cigaal baa mar kale si muuqata luquntii u laalaadiyey markaas ayuu wiilwaalna hadalkii inta hakiyey warankii kula boodayoo inta dushiisa ku gelgelay ku yidhi halku xamay cigaalow cigaalna sidiisii intuu ku jawaabay ayuu yidhi ima xamana waa hamiyey garaadow war bal sheeg shirkana maqashii wixii aad ku hamiday haddii kale intii aanu garaadku weedhiiba dhammaystirin ayuu cigaalna ka horgeeyey su'aal uu ku sheegay inay tahay wixii uu ku hamiyaayey taasoo ahayd addimma goroyo majeenyaa mase waa lugo dabadeedna garaadkii kolay ku tahay raggii oo idil ayaa sidii markii hore yaab la kala jeestay waxay la ashqaraareen siduu mar labaad cigaal isku xujo furay iyo weliba dhumucda su'aashii uu iyaga soo dhex dhigay runtii su'aal meesha ku jirta ayay ahayd ha yeeshee ma ahayn tuu weligeed maankooda ku soo dhacday waxay ahayd intii cabbaar ah su'aal ay baadigoobka jawaabteeda ku raageen nin walibana wuxuu isku dayey kii garabkiisa fadhiyey inuu ka tawdo bal addimmo goroyo waxa lagu sheegi karo waa garabgaab ay xoolihiina soo hoyaad yihiin godkii galbeed ee ay ku qarsoomi jirtay ayay qorraxdii ku sii durkaysaa lo'dii oo insaarixihiina waxay tiigsanaysaa golayaashii la fadhiisan jiray iyo halkii ay weylaheeda ku ogeyd ha yeeshee garaad wiilwaal weli waa taagan yahayoo isaga oo hubkiisii u dhan yahay ayuu dabeebanayaa guurtidii tolka iyo raggii u dagaalami jiray ayuu la hadlayaa isaga oo warka dheeraynaya oo si ka badbadis ah u faahfaahinaya
ninkii oday ahaa isaga daal warkiise kii dhalinyaro ahaa ayaa daal u dhimanayo oo jeclaan lahaa maruun inuu garaadku shirka soo gebagabeeyo. iyagu waa moog yihiin, isaguse wuxuu weli jeedaalinayaa ciyaal mooye bal cid kale oo meesha ku lulmoota dabadeedna uu ruuxa weysiiyo. waxaa la bilaabay in si hoose la isu weydiiyo, war hadal la is yidhaahdaa maba harine muxuu garaadku meesha inoogu hayaa. sidaanse ma ahaan jirine maxaa maanta ku soo kordhay. waxay ahaayeen su'aale ay dhexdooda iska weydiin karayeen, isagaase aan cidina kula dhici karin. iska dabeebtaba mar saddexaad ayuu indhaha ku joojiyey cigaal oo inta madaxii kor u hayn waayey kolba laabta ka soo ceshanaya, iyada oo dhammaan raggii kalena ay qun u fadhiyaan oo daal foolkooda ka muuqda ha joogtee aan mid lolmoonayaa ku jirin. markaas buu dhab u cadhooday. umil daraaddii ayuu dhulkii cagaha ku hayn kari waayey. ilkaha ayuu isku lisayaa. wuxuu u hamuuman yahay dhiigga ninka gurigiisa iyo afadiisa ku soo dhiiraday. waxbaa kuu bidhaamay intuu isidhi ayuu mar kale bowda ku dul joogsaday cigaal iyo halkii uu shirka ka fadhiyey. isaga oo kaalkii dushiisa ku gelgelaya ayuu kaga naxsaday erayadii uu hadda ka hor labada jeer weydiin jiray ee ahaa halku xamay cigaalow. cigaalna tabtii uu u jawaabi jiray intuu u jawaabay ayuu yidhi ima xamana waa hamiyey garaad xirsow. wiilwaal oo ay la tahay moogaan inuu cigaal dabankii ugu soo dhacay ayaa dabadeed ku guulguulay, war bal sheeg shirkana maqashii waxa aad ku hamiday, haddii kale galabta hooyadaa way kaa gablami. markaas buu cigaalna isaga oo deggan wuxuu ku jawaabay garaadow waxaan ku hamiyey naasa hablood ma jiir baa mase waa caddiin. raggii shirka fadhiyey ayaa haddana cabbaar ku hogmay su'aashii uu soo hordhigay. nin waliba wixii ay la ahayd ayuu goobtii ka yidhi. ha yeeshee ugu dambaystii way isku raaci kari waayeen naasaha haweenku baruur iyo jiir midka lagu sheegi karo. markuu heli kari waayey marmarsiyo uu cigaal inay ku xujeeyo ayuu wiilwaal shirkii soo gebagabeeyey. dabadeedna nin waliba reerkiisii ayuu u dheelmaday, iyada oo lagu wada howlan yahay helista jawaabaha su'aalihii cigaal soo jeediyey. fii dambe maray tahayoo xoolihii ay xeryaha ku xasileen ayay wiilwaal iyo afadiisii isku keliyeysteen. wuxuu uga warramay shirkii iyo sidii ay wax uga dhaceen. wuxuu ku yidhi raggii shirka joogay nin keliya ayaa 3 jeer iila ekaaday wax lulmoonayo oo hurda hayso. ha yeeshee kolkii aan weydiiyey sababta uu 3 jeerba la lulmooday ayuu ku andacooday wixii uu la fooraray inaanay lulmo ahayn uu ku hamiyaayey arrimo wareeriyey oo uu jawaab u waayey. 3 jeerba wuxuu soo bandhigay su'aalo lala yaabayoo jawaabtooda shirkii oo idili uu garan waayey, isagiina loogu garaabay. sidaa darteed aniguna waan iska daayey kolkii aan u waayey marmarsiyo aan ku xujeeyo. kolka sharaca leehayga qarinne ninka magaciisa ii sheeg. dahabo ayaa markaa ku tiri iska seexa garaadow. shirka dambe ee raggu isugu imaan doono ayaan waxaan ninkaa kuugu yeedhi astaan aadan marnaba ku garan waayi doonin. dhegaystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hidduu maanta halkaa aynoo jooga waa inoo toddobaadka soo aadan iyo waayihii iyo sheekooyinkii wiilwaal qaybtii ugu dambaysay hadduu eebba idmo. barnaamijkaasi dhaqanka iyo hiddahana waxaynala socodsiinayey axmed faarax cali idaajaah oo alaaba barnaamijkaasi isku soo dubarida